بايا كسر وينها أنا وهروسي وضعنا حفلتنا أحمد شيل وكهلين دونا حرير كأول حياة وحبرشة هي الشغلة أحمد شيل واتقنا كل لا يكفي علينا ما صاير معنا. السلام عليكم. waxaan maanta farxad weyn inaan ka soo qayb galay xaflad inta qof ay isugu timid oo loogu hambalyeeyo dhalinyarada dugsiga sare dhamaysay iyo ardada ka aflaxday iskuulka Macallin Saciid oo inta muddo ah socday runtii oo dad badan hawlo ku adkaan lahaa oo ay meel fog u aadi lahaayeen u fududeeyay waxbarashada sidaadaba sida hore looga dhawaajiyay faa'iido weyn khasaaro male laakiin sida qaalibka dadku way ku adag tahay inay wax bartaan maxaa yeelay waxbarashadu waxay u baahan tahay sabir waxay u baahan tahay dadaal waxay u baahan tahay maalgelin iyo energy qofkii markii aan awoodin oo aan ku talagelin way ku adkaanaysaa noocay rabtaba ha noqoteen inuu wax barto short course wuxuu ka mid yahay waxyaabaha muhiimka u ah qofka rabo dalkan inuu ku noolaado ama ka shaqaysto waxaa kaloo iyadana muhiim oo aan rabaa inaan dadka xusuusiyo kuna baraarujiyo barashada luqada Swedish-ka si dalkan martida aan u nahay aan ka dhaqan duwannahay aan ka midab duwannahay aan ula noolaano aan si fahamno waa muhiim inaan dhaqankooda fahamno luqadooda barano haddii luqada aan barano annagana ammaan baan ka helaynaa ayagana ammaan bay naga heli dalkana waan ku wada noolaan karaynaa si dhib yar marka waxaan rabaa maadaama aan dareemahay dadka intooda badan inay dalka ku cusub yihiin iridda laga soo gala dalka waa luqadiisa qofkaan luqada baran weligii martib ahaan albaabka garaacahayo aan laga furin maalinkaad laakiin luqada barato uma baahna albaab inaad garaacdo ama dirshada istaagto maxaa yeelay dalkiiba dhex joogtaa luqada Swedish-kana waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhaahdaan dalka muu yar yahay meelo badan loogama hadlo laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego waxay ka mid tahay luqadaha horumaray adduunka ee wax lagu barto heer sare iyo heer dhexaba haddii luqada Swedish kaliya aad barato waxaan aaminsanahay inaad cilmiyo badan oo ku anfaco ayaad iska isu bari kartaa waad la socotaan hadda bulshooyinka adduunka ku nool ama nolosha adduunka waxaa loogu macdaray information halib bulshooyinkii warisweydaarsiga waxaa la adeegsadaa internet waxaa la adeegsadaa waxyaabo la yidhaahdo mobilada horumarsan iyo wax la mid ah marka qofku wuxuu awoodaa asoon jaamacadii meelba aadin in waxbarashada u baahnaa si dhib yar usoo dejisto ama meel ay ku jirto soo booqdo afkeena Soomaaliga oo ogtihiin dad 20 milyan ku dhow inay ku hadlaan way yar tahay aqoonta lagu turjumay internet waxa la ekaateen si kastoo internetka aad uga raadiso arki maysid cilmiye fara badan marka laga reebo diinta oo ku turjuman af Soomaaliga laakiin luqada Swedish-ka waxay ku jirtaa luqadaha haddii aad raadiso macluumaadka u baahan tahay cilmi nooc rabo ha noqdeen inaad ka helayso internetka ama soo daabacan ama soo qoran marka luqada ikhwaani aad muhiim u tahay wali waxa ku sii saaciday waxa weeye maadaama dalkii looga hadlayay aad joogto iskuulada ay lacag la'aan yihiin TV aad fiirsanaysaa Swedish yahay waraaqii ku soo dhacay Swedish yihiin dadka aad la kulmaysay luqada ku hadlaan waxaan aaminsanahay xataa practical inay ku fududaanayso luqada inaad tababar ku samayso way adkaanaysaa qofku intuu iskuul barayda tago inuu luqada ay rabtaba ha noqoto uu barto maxaa yeelay theory bas ay noqonaysaa laakiin haddii aad maalin walba ficil ahaan luqadii u hirgelinayso oo ku dhaqaaqayso ku dhaqmayso waxay ku sahlaysaa in luqadii si dhib yar aad u barato adoo xagna theory akhrinhayo xagna ma aragtay ku hadlayo luqadii ama ku hadfan inaad ku hadasho marka si dalka ay kugu fudaato inaad ku noolaato si dalka dadka ku nool ee iskale aad isu fahamtaan oo la socotaan Sweden muddooyinka dambe dadka ajnabiga lama jeclo waa lagu kacsan yahay kacdano badan baa jiro xisbiya xitaa waxa soo baxay profile-koodu uu yahay dadka ajnabiga in la yareeyo dalka laga saaro ama la masaafuriyo waxyaabaha dadkaas qayb ka mid ah lama wada dhihi karo dhammaan waxay ku salaysan tahay khaladaad dadka cusub ka yimaado khaladaadkaas waxaa laga yaabaa inaan qasad ka ahayn dadka sameynhayo laakiin ay u wacan tahay jahli maxaa yeelay idinkala qiyaasa qofka Swedish-ka Sweden ka taga ee Soomaaliya taga Soomaaliga aqoon inta xeer iyo dhaqan ee Soomaalida leedahay jabin ama dadku ay la yaabo dhibsanayaan waa kan xawkeeda ku naga soo doonay sarwal dabagaabo xidhay haweenay madaxa banaystay iyo wixii la mid ah annagana sidoo kale marka halkan imaano annagoo ka dhaqan iyo diin iyo midab badan dadkii waxa inaga dhacay khaladaad fara badan waan u kaseen طبعا ومهم marka hadii luqada la barto way fududaan waxyaabahaas dhan waad garan waxa laga rabo waad garan waxa laga sugahayo waad garan waxa munaasabka
marka aan ku dhiirigeliyo anoo aad ugu hambalyeynaya dadka qalin jabiyey ama dhalinyarada dugsiga ama ha noqoto ama ardada ka qalin jabisay iskuulka macallin Saciid ha noqdeen iyo inteena kaleba inaan aqoonteena kor u qaadno sida luqadda Swedish-ka aad u mahadsantihiin ماشيل هو كم أحسن أسئلة قلة هذا الذي حتى لو سجلي وصافن فرشاد شغالة يقفك سيد اللغة دون يا مان سيد والله صوت من هو فاتو تبعت من طول شغالة هذا هو ما أحسن هاي مركان وهم كسر وين عتباهية فالبون إن شاء الله أو كتسن دقمة بولانجا أو كلمة هذا نوصل جديد دون وحنا نترجم دون هذا الكلام مرسل عيسى Jag är inte nog förberedd för att prata idag. Jag vill bara säga hej kära vänner. Jag säger ju vänner för ni är ju mina vänner. De flesta av er har jag träffat via mitt jobb. Jag är stolt och har äran att få vara här hos er idag. Att dela eran glädje tillsammans med er. Vi ska vara glada att vi har ungdomar som lyckas i det svenska samhället. För ni är ju en del av svenska samhället. Så är det. Vi ska vara glada att vi har förebilder som hjälper oss att komma vidare. Och lyckas i samhället. Lärare som vi ser upp till. Det är inte lätt att komma till ett nytt land och börja om från början. Det var precis samma sak för mig. Jag kommer ju från flykting 1998 från Kosovo. Och ändå har lyckats bra, tycker jag. Och samma sak gäller er. De flesta av er här i det här rummet har jag träffat. Och varje gång jag träffar så växer jag verkligen med er. Eftersom jag har så många tankar och goda idéer om hur ni ska lyckas. För det är inte lätt. Det är inte lätt att komma till ett nytt land och få ett jobb. Och komma in och bli accepterad. Men med kamp, att man kämpar och med envishet och med vilja kommer man att lyckas. Ni är ju framtiden och det ska vi vara stolta över. En till sak vill jag säga. De flesta av er kommer att komma till mig. Och de som saknar körkort så kommer jag skicka till sig. För där har ni hjälpen. För så är det. Ett steg närmare arbetet, det är ju utbildning men även körkort. De flesta jobb idag är utanför Borlänge och man behöver körkort. Man behöver utbildning, man behöver kunskap och man behöver goda förebilder. Och jag håller med Ahmed, för nu fick jag äran att få översatt det Ahmed Kil sa. Det finns ju främlingsfientliga krafter i samhället. Och det ska vi visa. Vi ska inte vara rädda för främlingsfientliga krafter. Men vi ska visa att med godhet, med kunskap och med utbildning så kommer vi att lyckas och komma längre fram. Med framtiden, med utbildning och med allting. Och vi kommer att bidra till att det här landet fortsätter att gå vidare. Men även om vi inte stannar här i Sverige så har vi kunskap med oss som vi kan bidra i våra länder. Det är det jag säger till mina barn. Du har ett kunskap och kunskap kan ingen ta ifrån dig. Det är du som bär och det är du som äger din egen kunskap. Tack så hemskt mycket. Jag är äran att vara här. Tack så mycket, Charla. Waxaan u helay inaan soo koobo hadalkii walaasha. Hadda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay, sharafnaya inaan idinla kulmo. Halkaan idinkula kulmo. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan intaasoo dhalinyaro ah inaan la kulmo. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadaalkaan samaysay sababtoo ah waan in badan idin ka mid ah hore ayaan idiin arkay. Ma fududayn in wadan la yimaado wadankaasna degdeg loola qabsado sababtoo aniga laftirkeeda marxaladaas ayaa soo maray markaan qaxootinimo ku yimid Kosovo. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay markasta oo aan idinla kulmo inaan wax cusub aan idinka barto. Aad iyo aadna
waan ugu faanayaa oo sharaf bay tahay sida walaalkan Axmed Shiil uu sheegay waxaa waddanka ka jira awoodo jinsi nacayba kana soo horjeeda joogitaankiina iyo joogitaankanaga waddanka awoodahaas waxaynu uga hortegi karnaa waa inaynu aqoon ula nimaadno waa inaynu muujino dhinacyadana wanaagsan dhinacaas waya dhinaca aynu kaga hortegi karnaa dadaalkaad samaynaysaan waxa uu sharaf u yahay degmadan wuxuu sharaf u yahay waddankan ayuu sharaf u yahay anigana sharaf ayay ii tahay in badan idinla ka midana waan la kulmi doonaa mustaqbalka waxaa kaloo aan samayn doonaa markaan idinla kulmo mustaqbalka waxaan dhihi doonaa haddaydan haysan laysan waa inaad siciid aad la xiriirtaan iyo wax badan aan ka tegin laakiin macnaha ahaa sababta waxaan diidayay inaad sii celi soo celi waa in badana waa mahadsantihin raallina haada haddaan kulmaa مرسل هذا ما تناهي وفربون إن شاء الله أو خورسي هذا لا يمسوا جديين ولما أنتوا وحرشة بساطنا هاي ما تصير قفوا ولا بسنكروا وضن كان سويدن وقد عن كمال ناس وإسلاقنا دماتين إنه تهاي وحرشة المهم قفك هدوسهم وحبرنا مارت إنه سن لقب سنكر المال كالسوجو عالم مركا إنه وحان كسو دوينا عدبائيها أبوان أبشر دارة وأصلا تح قوية كو عبير دونا ومنسيتين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز حصول كده جاري وقابن مدام أحمد أبوان أحمد أبشر دارة ويسود ري قبل وصغري تاسو مقرن يساي هدا عن مقرن يساي هدا عن صغري أنا waxaan ku tarayaa gaari oo gaaban marka gaaraka wuxuu sababtay inta badan waxbarashada ardada ayaan soo jeedinaa insha Allah moogtahay adduunyadu haddii ay Itaaliyo awood wax tari lahaa arbaha maroodiga soo mu arrimiyeen wuxuu eersanayaa wayda ugu jir waa qoyrante ardaygu ogsoonow akhriskiyo qoraalkuba ashkin way ku raran ku sida adag agabkaada ku sida وحيو إلهي وتقولها أصوات رئيقها وهريسين وجدود وحي تاي روح أحد عن وحبة صبرا آدمي إنو سحاي كرين أدينا أكسونو وأخرسكي وغراك وأشكون ويكون على يادر ما سنة يسي أرضي أكسونو أنت كنت بحنسوك الدنيا قبائي قابية ممكن يسوي صدري أبوان أحمد أبشر دوري أطمع علينا أحمد الجر أو يوصل جيبي قبك إيميلك waxaa soo dhibay saddex qaybood qayb waxa ku saabsan tahay teoriga qaybna waxa ku saabsan tahay ardayda qalin jabisay qaybta saddexaadna waxa ay ku saabsan tahay sportiga marka haddii aan ku horeeyo tan teoriga taada gabayga waayaha niman taaban baan nahay ha yeeshee tayaan doonayaa inaan tilmaamaaye tala sharaf leh tusmo iyo wanaag ama teoriba tartan weeye aadmigu inay nolol tibaaxaane inaad tuugto qayrkaana waa tacaddi ku yaala tababara Saciid iyo intuu taliya noo joogo tilaabaan la qaaday bulsho intaha la ogaado afarta haddaan toosiyeen tuurta ka ilaashay afar kalena waa taagantee toos u yara dhuuxa teoriga kii baasay oo shoorinka u taagan matashadaha gurigii fadhiya sooma tala dhaamo waxba gabaygiiyo ila tegine waxaan ku soo toobay تحضر تعليم برشوة ولوكان هذا قبل يعني بعد نحكي الله يا سبورتي كتاسو وترك الأرضية من قناة ساي وبدأ عيارته أما فوتبول سبيلر بريها بربار إلى عيار ما نصب بحنا باب كذا ما نفرن تحلم بيكسنجر رواية واصل صوب واصل لي بغرا مالنتان حول صوب وهاي برت شبكة برت شبكة دافع أي مكان labada baal eego dhexda buuxda baas lagu xukumo weerar bilcdiisa noobaha bannaan yaal markuu shabaqa baaqsiiyo inaad booydo waa halis haddaad boortahaas tahay haddaad gool bareejo la timid qalbigu wuu bogsanahayaaye bilad sharaf iyo waxaad raadisaa beese iyo koobe barbaar yahay ogow aadmigaad baawar dheer tahay gabayga saddexaad waxaan kasoo qaadanayaa asna hal cutub
taasoo kaga hadlayay ardaydii qalin jabisay oo maanta horteena fadhida da'da gabay waayaha niman da'da gabay waayaha ninkaa daaya baa nahaye waxse maanta ii daray runbaa deeqda aadmiga ee dhallinyaro dadaal badan ayaa doorka soo baxaya tacliin dahaba jaamici darajo guud yaalle darajiyo xil dawiya caafimaad daacadnimo yaalle dugsi nabada daryeel caama iyo duunyo dhaqis yaalle dalkanaga burburay oo jahligu dumiyey keyrkiisa rabbi daa'im weeye bulshooy dib u dhiskii yaalle afartaas daleeyaya haddaan deelka ka higaajay dulucdiiyo ujeeddada haddaan gabay u deen waayey daacadnimada eebiyo xaqaan gacaladay doontay dhallin yahay ducaysani adaan kuu dan leeyahay ee dayax soo bixiyo waxaad tihiin ubaxa dayreeda duruus barashadiinaa qalbigu waa ku diirsaday idinkaa waqtiga daayacayn oo waxbaro dow u soo maraye dhammaantiin waa mahadsantihiin abshir wuxuu ka mid yahay dhalinyarada degmada Puntland ee aad u firfircoon waa nin update dadka update-ka aad aan soo socnaa dad asxaab badan waxaa jirta magaalada laga guurata ama hoos u socda marka aad u mahadsan yahay markaan waxaan kusoo dhaweynayaa Cabdiqaadir Cagmadhige oo ka mid ah odayaasha degmada Puntland oo isna hadalkiisu ku aadan xafladda noo soo jeedin doona kusoo dhawow Cabdiqaadir Cagmadhige بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا مرتي شرفتا حفلة ضدك سوى بابولي أرضيدا كان جبسي جبسيرة سركة بحضي طبعا وعليكم السلام يا مرتي شرفتا بلبونا ونلجو تمانتا وأيضا نفتنا وكفر أحساننا هاي دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب sideedaba waxaa sharaf inoo ah soomaalida ku nool Puntland inaynu helnay indhaha inaynu kala qaadnay oo tacliin aynu ku kala qaadnay jahlina laga baxay teoriyana la baranayo mahadiya ka gaartay waxaa laga yaabaa dad badani oo Soomaaliyeed dad badan oo adduunka ku nool inay nagu eedeeyaan inaynu waxba baran inaynu dad aqoontoodu ay hooseyso aynu nahay laakiin waxaa farxad ah reer Minnesota inay ku guuleysteen dugsiyada sare iyo jaamacadaha inay Soomaalida ugu horeyso waxaa isa soo tarayo Sweden marka haddii lagu eedeyn jira ardaydu sagaalaadka kama baxdo sagaalaad iyo sideedaad intay soo dhaafeen bay dugsiyada sare ka baxeen waxaana mahad Ilaahay ka gaartay maantu aynu daaqsanaynaa macallin Saciid iyo tiyarigiisii uu bilaabay oo lagu naalooday in badan oo hor fadhidana macnaha ay ku guuleysteen inkasta oo xisbiga la dagaalamka bay'ada macnaha in la burburiyaan ka tirsanaya haddana laakiin waa tacliin la bartay oo horey loo qaaday si kaladana la badiyaan leeyahay in la barto macnaha dadku barkooda caafimaadkana uu ku jiraa waxaan dhihi lahaa macnaha oo sharafi ah dadkeennii ugu soo horreeyay halka yimid hal eray inaan ka dhawaajiyaan rabaa oo tacliinta ku saabsan arrinta ayaanu kusoo gabagabaynaya wa amaa binicmati rabbika faxaddith macnaha nicmada alla kuu galladaystay ku xamdi oo ku shukri markaan imaanayna waddankan sagaashameeyadii ma jirin qaamuus Soomaali ah oo aynu tixraacno oo aynu wax ka baranno oo aynu fiirino oo haddayna safiyaadno safiyata ma jirin waxa la isu jiray luqadaha qasab aynu ku baran jirnay marka waxaan leeyahay intaynu luqad dhaafnay oo qaamuus dhaafnay oo tacliintii iyo cilmigii macnaha la saqiray oo guri kasta lagu baran karo in haddana macnaha la yiraahdo waalidiinta iyo in lagu eedeeyo luqadu ma yaqaanaan
shaqa saas ayaan lagu siinay ceeb bay nagu tahay sida horumarku aynu tiiriga ugu samaynay ha loogu sameeyo macnaha luqadana waa furaha sida walaalkay Axmed Shiil uu sheegay waxaanu laga baahan yahay ambaasador ayaynu nahay oo safiiro ayaynu nahay safiiradana waxaan ka turjumaynaa macnaha waddankan ka nimid macnaha waddankan ka nimid ee Soomaaliya haddaan ka turjumayno bilic wanaagsan waa inaynu siinaa bini aadamku saddex shayna waa inaan ku dadaalnaa lacagi waxba ma taraysa cilmi waa inaynu ku dadaalnaa sumcadda waa inaynu ilaalinaa soomaalinimadana waa inaan ilaalinaa diinta islaamka oo sumcad weynna waa inaynu ilaalinaa waxaan mar kale u mahadnaqayaa macallin Saciid oo juhdi weyn ku bixiyey iyo inta la shaqaynaysay ardada ah haddaan la helin ayada nafteeda macnaha fursadan macnaha maynan hergasheen mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay allah ka abaalmariyo sida uu macnaha Mus'ab bin Umayr oo uga dhigay Madiina markii rasuulka u yimid sallallahu alayhi wasallam waxaa dhacday macnaha in qoys kasta oo muslim ah marka macallin Saciid wuxuu naga qabtiray arrin aad iyo aad aan ugu baahneen oo ah tiyooriga cilmiga kalena ku daro waxaan dhihi lahaa macnaha safiigana ku daro waxaan dhihi lahaa